runtii uma baahnidin jihayn dad jihaysan baati uma baahnidin inaan idin tilmaamno waxaan qaban lahaydeen waxaad qabsateen baad tusteen waxaan filayaa waxaad nooga baahan tihiin waxa weeye inaan sii dhiirigelinno waxa inaga dhiman oo aad gaari weydeenna in la baarigo waxa ugu muhiimsan oo dalkan runtii la rabo waxa weeye si yoolashaas hadalka laga sheegay loo gaaro waa inay helaan deganaansho siyaasadeed deganaansho siyaasadeed in la helo noloshan casri ah waxay ku dhisan tahay in la helo nidaam dimuqraadi oo u masaamaxayo inay dadku helaan axsaab kala duwan afkaar kala duwan leh iyo garoomo ay ku tartamaan si ay qofkii guusha u raacdo loo arko muddo kooban inuu soo bandhigo wuxuu dadka u soo bandhigo doorashadaasi waxay ka soo bilaabanaysaa xaafada waxay ka bilaabanaysaa ururada kala duwan ee dhalinyarada iyo qaybaha kala bulshada waxay ku jirtaa degmooyinka iyo konsolada waxay ka jirtaa baarlamaanada waxay ka jiri doontaa madaxda sare intaas oo dhan waxay rabnaa in si hufan oo xadaaro leh mustaqbalkaan u gaaro waxa hadda deganaansho la-aanteena kharibaya qof yar oo wax qoonsaday ayaa wuxuu rabo intuu sheego dhinaca kale dadkii u rogaya bulshadii noloshooda burburinaya isagoo wax sharci ah iyo qawaanuuna ku socda jirin waa nasiib darro in la dhaho halays doorto oo qofkii lasoo doortay dabar celiye uusan lahayn oo xadka u goosto waan ka xumahay in madax Soomaaliyeed ee dadkeena ay doorteen oo madaxda federaalka ah maalin walba wax laga sheegay iyo madaxda kale maxaa yeelay haddaad naftaada ixtiraami weydo cidna kuma ixtiraamayso haddaad noqotid man la yastaxyi fasnic maa shi'ta oo meesha aragtid aadi de waxaa ka dhalanaya waa foolxum waxaa maanta na haysta weeye in meel walba kuweeni dibadda jira oon islahayn way baxsadeen oo maalmo dhexdaasa dhalinyaro fara badan oo meelahan ka tahriibto aada loogu farxay maraykanka galeen la lahaa waad aragteen maanta waxaa haysta dadkii inuuna noco adduunka waxaa keenaya dhalinyaradaas eed male dibadaha tegi waxyaabaha khaladaadka laga sheegayo anigu ma eedeynayo maxaa yeelay waa dad ka soo jeeda dal aan deganeyn iyo dadkiisii ayuu ka walwalayaa duruufaha dadkiisa ku jiraan iyo deganaansho la-aanta qofka ay qurbo ku haleesho waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo khaladaad inuu ku dhaco khaladaadkaaga markuu batana ummadda aad la nooshahay waxaa laga yaabaa inaysan kuu naxariisan oo ceebo ay kuu samayso runtii arrinta waagi hore dadka dibadda jiraa waxaa la dhihi jiray dadka gudaha iyagaa u maqan laakiin maanta waxay maraysaa dadka gudaha joogaa dadka dibadda jira inay u maqan yihiin la rabo maxaa yeelay idinkaa la rabaa inaad dadkiina tusisaan degdegan qurxoon horumar ka socdo dhaqaale jiro oo meeshay halkaa u hijroonayaan duruufta ku kaliftay kii isagu de iska joogo nolol ka samaysta waa meesheede kan ku dayacan inuu yidhaahdo alla ilahay dalkaagii baa kuu roon oo dib u soo noqdo duruuftaas waxaan is leeyahay waa la abuuri karaa haddii ayn si midaysan u wada shaqeyno dabcan waxaan na sugayo wax yar ma aha waxa aad soo bandhigteenna hawl yar ma aha laakiin waxaan aaminsanahay hadday iraado iyo ka go-naansho jirto rabbigeenna tala saarano inaan wax badan qabsan karno meeshaan aan soo gaarnay ay Puntland maanta marayso waqti iyo naf iyo maal iyo maskax baa ku soo baxday maanta inteena joogta weliba inta dhalinyarada ama joogta waxaan ku faraxsanahay in wacyigiina kordhay inaad diyaar u tihiin dalkiina in aad sharaftiisa ilaalisaan horumarkiisa dhowrtaan qaybihiisa kala duwan hadday siyaasad tahay hadday ganacsi tahay hadday xirfadlayaal tahay iyo hadday arrimo bulshada tahay inaad u istaagtaan oo ka shaqaysaan runtii waxa weeye waa wax aan isdhihi karo meel muuqato oo wanaagsan baa dalkeena ku socda waxaan rajaynayaa dulduleello way jiraan meel walba ka jiraan qofkii shaqo qabtaana dulduleel kasoo dhex baxa waxaan rabaa insha allah shirkan wixii ka dambeeya inay kasoo baxdaan qoraallo isu bedela howlqabad waxaan dhinaceena diyaar u nahay
talooyinkii halka aad ku soo sheegteen iyo duruufihii kala duwanaa ee noocyada kala duwan ah ay halka aad ku sheegteen hadday tahay mid inaga haysata dhinaca ganacsiga hadday tahay mid inaga haysata dhinaca xirfadlayaasha iyo hadday tahay guud ahaan dhalinyarada mid haysataba waxaan rabaa inaan halka iniga caddeeyo inay dowladda Puntland diyaar u tahay inay waqti geliso dhalinyarada siday ula wareegi lahaayeen hoggaanka dalkooda waxaa intaan tusaale u tihiin dhalinyarada ballaaran ee Puntland ku nool meel kasta ay joogto waxaan rajaynayaa dadaalka hadda aad qabateen ururka aad la yeelateen iyo sida aad isugu xiran tihiin waxaan rajaynayaa inuu noqdo wax la taaban karo oo dalkan taariikhdu maalin dambe xusto intaa waxaa la sheegaa isbeddel kasta oo dowladda ka dhacay ama Soomaaliya ka dhacay dhalinyarada horseedaa la yiraahdaa dhalinyaraduna marka uu qofkaasi shaqadiisa dib u milicsado ayaa dhalinyarada ka dambaysa ka sheekaysa way yiraahdaa waagaas waxaas qabtay waa dhalinyaro ahayd qof kasta dhalinyaronimada waa soo maray laakiin fursadaha kala duwanaa annaga waa naga fursad fiicantii kolla anigu waa iga fursad fiicantii anigu markaan jaamacadda ka baxay baa dalkii burburay qax baan galay orod baan ku jiray saasay tahay nolosha kama quusano wax badan oo aan isleeyahay dan u ah waan ka qayb qaato ka qabtay haddii maalintii la qaxay dadka qaybtiis weliba dadkii ugu horreeyay u qaxay oo kiya tegay waan haddaan ilaa iska tago tahriibo oo weliba ii sahlanayd waxaan ka doorbiday inaan deegaanadan ku soo noqdo oo aan u arkayay inay yihiin meelo dulman oo duruuf gaara hayso oo dadkeedii runtii waxa ay mudnayn lagula kacay maxaa yeelay xadaaradda iyo horumarka iyo dhaqaalaha ka abuurmay dalka Soomaaliya oo koonfurta Soomaaliya u badnaa waxaa sameeyay dadkii dhulkan ka tegay waxay u arkayeen dad Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliya laakiin runtii arrintaas waxay ku noqotay moral jab in badan waa quusatay in badan waa u geeriyootay in badanna nolosha waa ka quusteen waa dadka dibadaha jooga laakiin in baa ilaahay mar walba fi alla ma waayo ummadda lagama waayo ka duwan in baa soo noqotay oo tiri sax maahane intii aan xaggaa ka abuurno halka waa laga abuuri karaa runtii dhalinyarada tihiin intiina badan oo tusaale inayma siin karo maxaa yeelay inta badan wajiyada arkayo xilli dalkan uu fiican yahay ama Puntland jirtaa ku dhex barbaartay laakiin bilowgii burburka duruufo adag baa dalkan laga soo maray waxa amaanta ka sheekeynaysaa oo runtii ilaa iyo maanta dhalinyarada qaybo ka badan aan maqlay mararka qaarkood anigu riyay bay u ahayd in hadda heerkan la gaaray waxaa nasiibkaas u yeelateen xilli waxaad soo gaarteen aqoontu aysan xuduud lahayn siduu injineerka halka sheegay oo aad u sahlan tahay inaan wax baranno ama aan wax yar kororsanno waqti dheer bay naga qaadan jirtay ama dalka dibadihiisaan u aadi jirtay hadda wacyiga dadka iyo aqoontu gacantiisa iyo jeebkiisa maalin lagu jirtaa taleefanku uu sitay ka buuxdaa waa haddii uu diyaar u yahay runtii fursaddaas waxaan rabnaa inaan u bedelo